calanka Soomaaliya waxa uu ka babanayaa fagaaro lagu soo bandhigay dhaqamo kala duwan kuwa oo ah dhaqamada wadamada ay ardayda ka joogaan Masar. toddobaadkan waxaa Masar ku soo gabagaboobay xaflado lagu soo bandhigay barnaamijka dhaqanka oo lagu qabtay jaamacadaha 6 Oktoobar iyo Qaahira waxaana ka soo qayb galay 22 dal. Soomaaliyana waxa ay qayb ka ahayd dalalkii ka soo qayb galay. munaasabada waxaa goobjoog ahaa safiiro kala duwan oo dalalkooda ka socda waxaana ka mid ahaa safiirka Soomaaliya Mudane Cabdiqani Maxamed Wacays iyo qaybsamaha waxbarashada Mudane Maxamuud Gowgowle. ardayda Soomaaliyeed ee dalkooda ku matalayay fagaaraha ayaa soo bandhigay alaabaha ay sida aadka u isticmaalaan dadka degan miyiga sida hoyga, xoolaha, cunto karsashada iyo dharka la xirto. waxaana intaa dheer oo ay masraxa ku soo bandhigeen ciyaaraha u gaarka ah Soomaalida ee jaandheerta iyo dhaantada. qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabada oo aan wareystay ayaa iiga warbixiyay sida ay ardayda kale ee ajaanibta u bareen dhaqanka Soomaaliya. ajaanib badan oo soo booqatay barnaamijka mumkin dadka yaani marka thaqaafad soo bandhignay aad ay u heleen yaani ma moodeen thaqaafada Soomaalida ma lahayn xaalad la joogo inay soo bandhigi karaan wax walba oo daruuriyaadka soo bandhignay cuntadii hadaan cod kiciyaan naqaanay hilibka kalaankalkii beerkii canjeeradii malawaxii iyo sambuuskii mashmashkii biskuudkii xalwadii soortii cambuuladii kulli wixii marka mumkin oo daruuriyaad hilibkii waslaadkii nooc walba soo bandhignay ma sha Allah aad ay uga heleen hatta shaahi waa soo bandhignay qaxwadii waa soo bandhignay aad ay uga heleen way soo dhaweeyeen maanta anaga hadaan nahay Soomaalida ku dhaqan dalka Masar yaani ama ardayda Soomaaliyeed shucuurteena ma la soo koobi karo waxa isku daynay ama waxaan sameeynay inaan soo bandhigno dhaqankeena Soomaaliyeed ayadoo ay nala tilmaamayeen yaani dawladda waaweyn oo xagga awood iyo xag kasta looga weyn laakiin waxa noo cadaatay in dhaqankeena Soomaaliyeed ama waxa uu leenahay caado inay wax walba ka weyn tahay sharafta ummadda Soomaaliyeed ama sharafta oo dhaqankeena ay salamid ee sharafaha wadamo badan run ahaantii marka meesha imaanay ama marka waxaan soo bandhignay waxa noqonay yaani dadka ugu badan ama dadka oo dhaqankooda aad loo xiiseynayo oo saad zaxmada meesha u noqotay marka waxa dareemi kartaa مولد حسن عبدي مولد موها ورباهنتا قرنكا قاهرة.